sana kusoo dhawaada kulankeennii toddobaadlaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay badqabka cunnooyinka iyo nafaqada. Waxaan idiin suurageliyay annaga oo kaashanayna hay'adda cunnada iyo beeraha ee FAO. Waxaa isku soo dubriday Xasan Kaahiye, anigoo Axmed Xasan Ibraahim ahna waan idinla socodsiinayaa. barnaamijyadeena raadiyaha ee gaarka ayaa ujeedadiisu tahay ballaarinta aqoonta iyo sare u qaadista dhaqamada wanaagsan ee nafaqada iyo badqabka cunnada ee dhageystayaasheena. Muhiimadda arrintan ayaana ah in aan awood u heli karno inaan xulasho ku saleysan aqoon aan u yeelan karno waxa aan cunayno iyo sida aan u daryeeli lahayn qoyskeena iyo shakhsiyadeena xagga nafaqada iyo sidoo kale caafimaadka wanaagsan. Nafaqada wanaagsan ee xoolaha, aadanaha iyo wax walba oo la xiriira nafaqa darro waxaan la imaan doonaa toddobaad waliba mowduuc ay xiiseeyaan dhageystayaasheena, inagoo idinkula wadaagi doona macluumaad iyo xirfado damaanad qaadaya wanaagsanaanta nafaqo ee dhammaan qoyska. Mowduuca maanta waa diyaarinta cunnada iyo kaydinteeda. Tani waa muhiim sababtoo ah qorsheynta waxa la cunayo, sida loo diyaarinayo cunnada iyo kaydintooda ayaa loo soo iibiyaa iyaga oo badan ama cunnada soo hartay ayaa ka caawinaysa in ay khasaarto, ilaaliso isla markaana sare u qaado tayada iyo badbaadada cunnada. Cunnada sida wanaagsan loo sameeyay ayaa sare u qaadi karta dhadhanka, shiidinta cunnada isla markaana kordhinaysa cunnada. aan u gudo galno ujeedka barnaamijka yaga. Waa kuwan talooyin fudud oo ku saabsan qorsheynta qaabka cunno karinta. Tixgeli baahida nafaqada ee qoyska marka la go'aaminayo waxa loo diyaarinayo cunnada. Feejignaan dheeriya waa in la siiyo ilmaha jiran ee nugul, haweenka uurka leh iyo sidoo kale kuwa nuujiya. Cuntooyinka ugu wanaagsan waa in had iyo jeer ay leeyihiin cunto dhisaysa jirka, cunno difaaca iyo sidoo kale cunno siisa tamarta. Keen noocyo kala duwan oo cuntooyina. Noocyada kala duwan ee cuntada meesha ay suuragal tahay iska yaree cunista nooc isku mid ah. Cunista cuntooyinka kala duwan waxay noo ogolaanaysaa in aan jirkeena aan ku siino nafaqooyin kala duwan inta ugu badan ee suuragalka. Si qorshe cuntooyinka si aad u hesho waqti ku filan oo aad ku go'aansato waxa la karinayo. U diyaari qoyska raashin ku filan si looga hortago inay cuntada ay khasaarto. Badbaadada cuntada waxaa loola jeedaa dhammaan tallaabooyinka hubiya in cunnadu aysan waxyeello u geysan doonin macmiilka, laga soo bilaabo wax soo saarka beerta ilaa iyo inta la diyaarinayo oo la cunayo. Waxaa jira 3 istiraatiijiyadood oo muhiim ah oo lagu hubinayo in nafaqooyinka la ilaaliyo oo jirka uu heli karo kadibna la karin karo. Xulashada hababka wax lagu karsado ee la isticmaalo ayaa muhiim ah maadaama qaarkood ay horseedaan burbur iyo sidoo kale luminta nafaqooyinka ku jira cuntada. Tilmaamaha asaasiga ah ee ilaalinta nafaqooyinka ku jira cuntooyinka waa sida soo socota. Yareynta waqtiga karinta meesha ay suuragal tahay. Tusaale, walaaq marka aad shiilayso, gaar ahaan marka aad saliidda ku shiilayso daqiiqado dhowr ah. Yareynta heerkulka lagu karinayo, tusaale ahaan cuntada in lagu shubo biyo kulul kadibna isla markiiba lagu shubo biyo aad u qabow. Yareynta biyo yar oo la isticmaalo inta wax la karinayo. Tani waxay si gaar ah ay run ugu tahay fitamiinada ku milma biyaha, tusaale ahaan uumiga. Cunnada waa in si habboon loo keydiyaa loona diyaariyaa maxaa yeelay cunnada ceyriinka la cuno sida miraha iyo khudaarta qaar waxay ku sumoobi karaan gacmo wasakh leh, biyo aan nadiif ahayn ama cayayaan. Jeermisku wuxuu si dhaqso leh ugu koraa cunnada diiran oo qoyan. Cuntada aad loo dheereeyo way xumaan kartaa waxaana ku jira kiimikooyin sun ah ama jeermis sababi kara xanuun. Hilibka ceyriinka ah waxaa ku jiri kara jeermis iyo waliba tixri loo gudbin karo dadka. Heerkee ayay cunnada la quuto ay u noqonaysaa cunno sumaysan. Cuntada waxay wasaqowdaa inta lagu jiro 3 qodob oo muhiim ah. Inta lagu guda jiro diyaarinta, sida cunnada iyo khudaarta ceyriinka ee sida xun loo dhaqay. Wasaqeynta inta lagu guda jiro diyaarinta. Isticmaalka biyaha wasaqaysan si loogu dhaqo miraha iyo khudaarta lagu cuno ceyriin. Gacmo wasakh leh, cayayaan ka dul saaran miraha iyo sidoo kale khudaarta aan u baahnayn karinta. Inta aad wax ku cunayso gacmahaaga oo wasakh ah, cayayaan oo ku wasaqooba
saxaraha, isticmaalka maacuunta wasaqda leh inta lagu jiro kaydinta. Marka cuntada daaha laga qaado, cayayaanka ayaa ah kuwa ugu badan ee wasaqeeya inta lagu jiro kaydinta. Waa kuwan talooyinka kooban oo ku saabsan kaydinta cunnada. Cuntada ha ku kaydinin daasado furan oo miiri karta. Cuntada ku hay weel nadiif ah oo daboolan. Cuntada waa in lagu kaydiyaa weel nadiif ah oo daboolan oo ku yaal meel qabow oo mugdi ah si looga fogaado in bakteeriyada ay wasaqeyso cuntada. Weelalka daboolan oo cuntada ka ilaaliya boodhka, cayayaanka, jiirka iyo qabowga ayaa sidoo kale ka caawiya cuntada in ay waqti dheer ay taalo. Burka waa in si gaar ah looga hayaa haanta hawadu ay ka ilaaliso sunta. Cuntada ha ahaato mid qalalan maxaa yeelay bakteeriyada ayaa sumeysa cuntada ku dhow biyaha. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano arrimahan isla markaana ay ka faa'iideystaan dadka dhageysanaya barnaamijkan, ayaan waxaan dhowr su'aalood aan ka weydiinay mas'uul marti ku ah barnaamijka. Su'aasha ugu horeysa aan weydiinay ayaa waxay tahay sida tan: waa sida ugu wanaagsan uu qofka u karin karo cunno nafaqo leh? sida ugu wanaagsan ee qofku uu karin karo cunnooyinka way kala duwan yihiin nafaqooyinkooda. Khudradda oo kaleeto waxay ku fiican inaan kariska laga badinin, oo si aan kariska laga badinin khudradda qaar waxaa jirto cunnooyinka ka mid ah oo karisku haddii laga badiyo nafaqada ka dhimato. waxaa ka mid ah maxaa la yidhaahdaa karootada iyo khudaarta la midka ah oo badanaa laga hela vitaminska. marka cuntooyinka category kala leedahay, cunnooyinka qaarna waxaa fiican kariskooda inuu badnaado oo xilli fiican la kariyo sida hilibka iyo cunnooyinka la midka ah. cunnooyinka kaleeto khudaarta ahna waxaa fiican in waqti yar ay karaan ama dabka laga ilaaliyo badankood. Sida ugu wanaagsan cunnada iyadoo badan loo kaydin karaa? sida ugu wanaagsan oo cunnadu qofka u kaydin karo waa inuu frinjeer helaa. haddii uusan helaynin oo meel baadiye ah uu ku nool yahayna in uu weel daboolan oo aysan kasoo gudbaynin waxyaabaha contaminationka keena ama cunnada cudurrada ku sababo bakteeriyada iyo tixsiga iyo waxa la midka aysan kasoo gudbaynin oo nadaafadiisa lagu taxadiray in lagu daboolo. waxaan dhihi lahaa mar walba in ay cunnada balance gareeyaan oo balance ay ka dhigaan, cuntooyinkoodana ay isku dardaraan oo hal cunto aysan cunin. haddii cunno ay isticmaalayaanna cuntada khudaarta iyo malayga iyo digirta iyo cunnooyinka la midka ah ay badsadaan. inta cunnooyinka loo yaqaano carbohydrateska oo burka iyo qamadiga iyo bariiska iyo la midka ay jirkooda u badin lahaayeen cuntooyinkaas waxtarka leh oo khudaarta iyo malayga iyo digirta ah oo proteinska laga helayeen ay badsadaan. fitamiina badan khudaarta ay ka helayaan, khudaarta aad ugu dadaalaan intii ku dadaali lahaayeen hilibka gaduudan iyo carbohydrate intii ku dadaali lahaayeen inay ku dadaalaan. cunnadana cunto baalansid oo dhammaystiran oo isku qasan inay isticmaalaan inta hal cunto ay isticmaali lahaayeen. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin mas'uuliyiintaasi barnaamijka nagala qaybgalayay. ururka cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaya hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka USAID, sanduuqa waxqabadka degdega ah ee qaramada midoobay, xafiiska gargaarka bini'aadanimada ee beesha Yurub, wakaaladda iskaashiga horumarinta caalamiga ah ee dalka Sweden.
soo gabagabeynayna barnaamijkeena inta aynu barnaamijkan kiis xiga oo aan kaga hadli doono nadaafada qofka iyo guriga waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.